looga filinkan wuxuu ku bilaabanaya dhulka Ozi muwaadiniinta looga Puntland waxay ku waabarsanayaan subax cusub leeyahay waxa dhintay Sixiroole sharta ahaa isla markaana gabadh lagu magacaabo Galindi ayaa waxay ku soo degaysaa kubad buufsan oo hawaa iyadoona u sheegi doonto dadka inuu dhintay Sixiroole xumaa dadka aad ayay u farxeen iyagoo wada qoslaya dhool cadeynayana weji qurux badan ka muuqdo waxay bilaabi doontaa isla markaana ay uga sheekayso sheekadii Sixiroole ahayd ee uu guursaday gabadhii gudoomiye oo lagu magacaabi jiray Taraab kadib wada hadal badan iyo xiriir badan waxa isku bedelay guurka xiriir kadibna maalinta waxa uu dhashay ilmo Akhtar Taraab waa xanaaqaya waxaana odhanaya ilmahan ma rabo in la qaado lana tuuro dib Taraab naxdin ayay ku abuuraysaa waxaana uu rajeynaya inaan gabadh arkin lagana qaado kadib waa laga qaadaya waxaana la geenayaa meel fog waxaana uu odhanaya arageedayga qarimana rabo inaan kadibna gabadhii waxa loo bixinaya Alfabela isla markaana gabadhii waa isoo weynaanaysaa waxna ay akhrisaa kadibna gabadhii waa weynaanaysaa waxayna imanaysaa walaashid waxaana uu keenaysaa ubax walaashid ay la saaxiibaysaa kadib ciyaalka ayaa ka xaraabaysan waana ooyaysaa walaashid kadibna waa xanaaqaysaa walaashid waxaana imanaysaa dib walaashid waayo ooyaysaa isla markaana waxaan arkaynaa Galindi oo le yarle waxaan ku noqonayaa magaaladeedii kadib markay u sheegtay inuu Sixiroole dhintay halkan waxaynu jeedaa Alfabela oo weynaatay isla markaana waxay la kulmaysaa Galindi iyadoo u sheegaysa kuna odhanaysa anigu noocina lama midi dadkiina lama midi dujeegana waa Alfabela walaasheeda ka yar ee Rosie ayaa waxa lagu keeni doonaa gabadha curyaanta iyadoo walaasheed u keeni doonto kabahadyadana u keeni doonto isla markaana saaxiibaya oo ay ku farxaysaa saaxiibaya intaynu ku kulmayna muuqaalka ku xiga YouTube-ka subscribe inoo saara muuqaalkan adigoo like saaraya siina share gareynaya waan idin jiraa saaxiibayaal muuqaalkan uu yaryahay muuqaalkan iyo muuqaal kale dhaadheer ayaa soo socda intaynu ku soo gaarino ku habkan ku siimisa baxsada assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh